kulanti wanaagsan dawdiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan maanta barnaamijkan ku soo qaadi doonaan waxa kamida isbahaysigii ay filla Soomaaliya la lahayd madaxda maamul goboleedyada oo si lama filaan ah isugu soo sharaxay jagooyin waaweyn iyo madaxweyne Farmaajo oo ka soo horjeestay qorshahooda lafta gareen iyo Qoor-Qoor oo xilal culus raadinaya ra'iisul wasaare Rooble oo soo saaray fariin qiiro leh oo si weyn u taabatay qulubta shacabka muxuu ka yiri qorshaha uu ku wajahayo doorashada iyo waxa ka jira inuu murashax yahay qoraal ka soo baxay xukuumadda ayaan idin soo gudbin doonaa beesha caalamka oo ka jawaabtay dalabkii ra'iisul wasaare Rooble isla markaana shuruud kale ku xirtay bixinta dhaqaalaha doorashooyinka Soomaaliya iyo mucaaradka oo taageero ka helay beesha caalamka wararkan kalena waxa kamida xogo cusub oo ka soo kordhay safarkii madaxda golaha wada tashiga qaran ee Sacuudiga maxaa ka jira in uu baaqday miyuusa safarkaas soo fargeliyay madaxweyne Farmaajo iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalkii Soomaalida iyo canfarta oo soo laba kacleeyay xilli la dilay Soomaali badan qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana Arbaco 25 bisha 8 ee Agoosto sanadka 2021 barnaamijka wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka dabadaawada ka qayb qaadada booliska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara wad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaane fadlan la faafiyo wararka oo gaarsiiyay saaxiibadeena idinka oo ku sheer gareynaya baraha bulshada mahadsanideen aynu ku bilowno wararkeena warar aynu helayna ayaa waxay sheegayaan in isbahaysigii filla Soomaaliya ay la lahayd madaxda maamul goboleedyada ee ka kooban ilaa iyo 3 madaxweyne maamul goboleed ee Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle in ay iyagu u hanqal taagayaan siyaasadda doorasho ee dalka ka dhacaysa sanadka 2021 wararka aynu helnay ayaa tilmaamaya in si gaar ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo waliba sidoo kale Galmudug ay u hanqal taagayaan xilal culus oo markaasi ay kaga mid noqdaan dawladda cusub ee la dhisi doono sanadkan ee dabayaaqadiisa xogta aynu helnay ayaa tilmaamaysa in lafta gareen uu hunguri weyn uga jiro in uu ku fariisto kursiga gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya isla markaana arintaasi xusul duub adag uu ugu jiro dhinaca kale Qoor-Qoor ayaa isaguna waxa uu ku haminayaa in la doorto madaxweyne ka yimaada beesha uu ka soo jeeda ma ahan tan kale si uu markaasi ugu guuleysto kursiga ra'iisul wasaarenimo ee Soomaaliya dawladda cusub ee imaan doonta balse madaxweyne Farmaajo ayaa arintaasi si weyn uga hor yimid maadaama hadii ay lafta gareen iyo Qoor-Qoor arimahaas ku mashquulaan isaga siyaasadiisa dib u doorashada ay meesha ka baxayso isla markaana ay ka mashquulayaan hogaamiyaashaasi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii maamul goboleedyada uu sida xooga ku geynayay lafta gareen iyo Qoor-Qoor iyo Guudlaawe ujeedkiisa ugu weyn waxay ahayd in doorashada ay kala shaqeeyaan isla markaana mar kale talada dalka ay ku soo celiyaan maadaama awoodda ugu badan ee xildhibaanada labada aqal ay leeyihiin maamul goboleedyada dalka ka jira haddaba haddii warkan uu dhaboobo isla markaana xogta ay noqoto mid si fiican u soo shacbaxda waxa walwal uu ku soo bixi doonaa filla Soomaaliya iyada oo ka fiirsan doonto qorshe kale oo arinkaas ay kaga jawaabi karto lafta gareen iyo Qoor-Qoor ayaa waxay ka mid yihiin labada siyaasi ee sida weyn markaasi cabsida looga qabo in ay siyaasadda si toos u soo falgeliyaan inkastoo Qoor-Qoor warkiisa uu markii horeba meel saarnaa haddana lafta gareen ayaa iminka ku soo biiray siyaasiyiinta maamul goboleedyada ee u hanqal taagaya kuraasta ee waaweyn ee dawladda cusub ee dalka markaasi ee imaan doonta haddaba waxaa laga warsugayaa filla Soomaaliya sida ay ugu qancin doonto lafta gareen iyo Qoor-Qoor in ay ka tanaasulaan qorshahooda ku saabsan in ay xalalkaasi raadiyaan bedelkii ay la shaqeyn lahaayeen ama ay ka shaqeyn lahaayeen dib u doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wararka ku soo kordha arintaas wararkana kale ayaan ku soo gudbin doonaa insha Allah markaana hadii aynu fiirno xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay soo saartay fariin qiiro leh oo si weyn u taabatay qulubta shacabka Soomaaliyeed taasi oo ku saabsan qorshaha ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ku wajahayo doorashada dalka afayeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo oo isagu markaasi qoraal dheer soo geliyay barihiisa bulshada isla markaana uu kaga hadlayo arrimo la xiriira doorashada dalka iyo sidoo kale sida ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu wajahayo doorashada ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan oo markaasi si aad ah loo hadalhayay muddooyinkii ugu dambeeyay oo ku saabsan doorashada iyo sidoo kale qorshaha ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ku wajahayo doorashada ugu horeyntii Macalimo ayaa waxa uu sheegay
in ra-iisul wasaaruhu uusan hunguri badan uga jirin doorashada, balse uu sheegay in doorashooyinka dadban ay yihiin kuwo aada u dhib badan isla markaana waqti ay u baahan yihiin. sidoo kalena waxa uu sheegay in doorashooyinka caalamka ka dhaca ay sidaanoo kale u dhib badan yihiin, inkastoo ay tan kasii dhib badan tahay. sida uu sheegay, doorasho in la hirgeliyo caadiyan xitaa dunida hormartay waa howl aan fududayn oo wax had iyo jeer dhex muquurata tabasho iyo cabashooyin, maadaama uu yahay loolan u dhexeeya dhinacyo kala duwan oo ku wada bartama hal kursi, qolo sii joogtay iyo qolooyin doonaya in midkood uu kursiga salka la helo. Soomaaliya doorashadeedu waa mid ka duwan dhammaan doorashooyinka adduunka, waa mid dadban oo aan toos ahayn kuna salaysan xanaan beeleed 4.5. dowlad federaal ah iyo dowlad goboleedyada qaar waa isdiidan yihiin. dowlad goboleedyada qaarkood qabaa'ilka degan xitaa dhexdooda uu farqi u dhexeeyo oo aan isku calolfiyoobeen iyo wixii lamid ah, ayuu yiri afhayeenka. sidoo kale wuxuu qoraalkiisa ku yiri ra-iisul wasaare maxamed xuseen Rooble waxa uu xooga saarayaa in doorasho daahfuran uu dalka ka hirgeliyo, isaga oo sida aadka ah u dadaalaya shaqsiyanna ah nin degan oo ahludiin ah, ayaa haddana tallaabo kasta oo horey loo qaado waxaa dhici karta dad tuhumo qaadaya, qaarna cabanaya, taas oo mararka qaar dhinac kaliya maahee dhinaca kala duwan uga imaanaysa. haddana tabashooyinka soo baxa sida ugama haro waa uu sii dabagalaa si uu u qanciyo cidda tabashada qabta, maadaama ujeedkiisu yahay inay horey loo dhaqaaqo oo doorasho la aado. Mr. Rooble inuu raaligelin rasmi ah bixiyo kama maago, ceebna kuma arko amaba uma arko haddii si qalad ah wax uga dhacaan oo uu saxo. saawaa bani aadam, horeyna waa u sameeyey. Soomaalidu waxay tiraahdaa tol waa quman, ninkii doona fool-la-aan buu dhaxlaa. sunnada ka mid ma ahan cid weliba ay raali noqoto oo wada qumanaato. hase yeeshee ra-iisul wasaare Rooble waxaa ka go-an in doorashadan ay ku qabsoomto jawi nabdoon oo isku dheeli tiran. dadaalkeeduna waa in ay markaasi sii joogteeyaan, dadkeeduna waa inay fahmaan duruufaha adag ee ku hareereysan doorashooyinka xilligan oo tallaabo kasta oo la qaado ay cidi markaasi damqanayso. hadalkan kasoo yeeray afhayeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimow ayaa waxa uu si weyn markaasi uga yimid ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo muddooyinkii dambe warar la isla dhexmarayay sheegayeen inuu yahay murashax, sidoo kalena doorashooyinka uu dhinac markaasi u xaglinayo. waaga qaybaha dambe ee barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaynu isla soo gaarnay. haatanna saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa ilaa hadda diidan inay soo dhameystiraan dhaqaalihii doorashada qaybtii laga sugayay, xilli ay gobolada qaar soo dhameystireen doorashada aqalka sare, taasi oo horseedi karta dib u dhac. beesha caalamka ayaa bixisay kaliya 7.2 milyan oo dollar oo kamid ah 32 milyan ee ku baxaysa dhaqaalaha doorashada, iyada oo ka cagajiidaysa lacagta kale ee harsan oo gaaraysa 25 milyan oo dollar. beesha caalamka oo dadaal badan ku bixisay sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho wadar ogol ah ayaa xilligan la rumaysan yahay inay rabto in taageerada dhaqaalaha ay ku bixiso doorasho ay ku qanacsan yihiin saamilayda siyaasadda oo dhan. shirkii dhawaan magaalada Muqdisho ay ku yeesheen golaha wada tashiga qaran ayaa ajendihiisa qayb ka ahayd sidii loo heli lahaa doorashada waa dhaqaalaha beesha caalamka ee doorashada, iyada oo maanta madaxdaas ay kulan la qaateen wakiilada beesha caalamka. ra-iisul wasaare Rooble iyo saaxiibadiisa dowlad goboleedyada oo uu qayb ka yahay maamulka gobolka Banaadir ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii beesha caalamka loogu heli lahaa dhaqaalaha doorashada qaybtooda, iyada oo saaxiibada dalalka caalamka ay iska ilaalinayaan ku degdega bixinta lacagtaas ilaa inta saamilayda siyaasadda doorashadu si isku mid ah ugu qancayaan hanaanka doorashada. mid ka mid ah shuruudaha beesha caalamka ayaa ah in marka hore la dhammeeyo doorashada aqalka sare lana guda galo midda golaha shacabka, markaasi oo ay fasixi doonto lacagaha kale ee harsan. hase yeeshee madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda ayaa cabsi ka qaba in haddii ay gudagalaan doorashada golaha shacabka laga yaabo in lacagtaas ay ka sugayaan beesha caalamka aysan imaan oo ay qasab ku noqoto inay iyaga bixiyaan. falanqeeyaasha siyaasadda ayaa rumaysan in dhaqaalaha laga sugayo beesha caalamka ay sii fogaan karto khilaafka siyaasadeed ee ka bilowday habraaca uu soo saaray golaha wadatashiga qaran, kaasi oo goluhu isku dayayo in uu markaasi
hoos u dhigo. Si kastaba siyaasiyiinta iyo ururada bulshada rayidka ayaa beesha caalamka ka dalbaday inay taageeradooda horseed u noqon karto doorasho daahfuran oo lagu kalsoonaan karo, taasi oo xilligan dib u sii dhigi karta halista amaba helista dhaqaalaha laga sugayo ee beesha caalamka. Hagaag ugu dambeyntiina haddii aynu fiirino dagaalada ka soconaya dalkaasi Jabuuti u dhaxeeya Soomaalida iyo Canfarta ayaa la sheegayaa inay sii xoogeysanayaan. dagaaladii ugu dambeeyay ayaa waxay hayeen kuwo culus, waxa ayna yimaadeen kadib markii maleeshiyada Canfarta ay weerar ku qaadeen shacab Soomaali ah oo ku sugnaa deegaanka Biicade oo ku dhow magaalada Caydi, waxaana halkaasi ka qarxay dagaal u dhaxeeya labada dhinac. sidoo kale dagaalka ayaa xooggiisu wuxuu ku sii fiday tuulooyinka Shagle iyo Birta Dheer, tuulada Qalacle oo ku yaala dhinaca magaalada Candhuufa. ujeedka weerarka ay qaadeen maleeshiyadka Canfarta ayaa lagu sheegay inay ku doonayeen inay ku qabsadaan dhammaan deegaanadaasi kadib markii ay horey gacanta ugu dhigeen magaalooyinka Garbaciise, Caydayti oo ay ku sugnaayeen Soomaali fara badan. inta la xaqiijiyo waxa dagaalka ku nafayay ugu yaraan ilaa 10 qof, halka ay ku dhaawacmeen tirintaasi ka badan oo labada dhinac isugu jira. wali ma jirto wax hadal oo ka soo baxay maamulka labada dhinac oo dagaalkaasi ay kaga hadlayaan. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeena. tan iyo warkan war la mid ah intaynu dib ugu kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.